kulanti wanaagsan khiyaarta wada naga dhageysanaysaa waa hornimo isniin ah 13 bisha November idaacadana gabi ahaanteed waxa maanta idinkaga imaanaysa magaalada Hargeysa halkaas oo dadku ay u dareereen waa Soomaaliland gobaha cod bixinta iyadoo la soo dooranayo madaxweynaha oo ay u tartamayaan 3 murashax waxaanu eegi doonaa bal sidii dadku ay codkooda u dhiibteen waxaana dadkii saaka codkooda dhiibtay kamid ahaa gabadhan halkan soo kaan maray fariyaradaas waxay kaga sii badnay markii ku xigtay inaan kaan u tagay wiisay adana inaan taan u tagay waxaan idhi xariiq indhaana waxa laga saarkay waan ku soo rido waan ku soo hobsay waxa kale oo barnaamijkan idinkugu soo gudbin doonaa warar ku saabsan bal in qaybo kamid ah gobolka Sanaag bannaanbaxyo ay ka dhaceen iyo in maamulka gobolka ayaanu ka wareysanay lahayn dhammaan goobaha codbixineed Sanaag bari goob codbixineed oo aan codku ka soconaynin ma jirto guud ahaan barnaamijka waxa uu ku saabsan yahay maanta isagoo Hargeysa idinkaga imaanaya qodobo la xiriira doorashada madaxweynenimada ee Soomaaliland وهاجاج قضبضها سايا برنامج كنتي سبضنا أنو كقال دونا هيا شمرك هور أنكو بلون وررك عالم كأحمد نجاشة يا نور رمية مهد سنة فرح شعب كجمهورية دايس كذا قودا واقد مدح بناني دا سومالي لأن أيامان تودر ريعود بحين تدرش مدح وينها تاسوي حكومة دا سومالي لأن من سنتها يني حوشين دو سوقر نقسي غاي كرادين يساقوش عالمية داد كمان تعود كودا ديبانيا وحلقو ديوان قلي قلب عصري أو ويل كاين دها قفك أقون صنايا si looga hortago inay dadku laba goor wax ka badan isdiiwaangeliyaan guddiga doorashooyinka Soomaaliland ayaa shirkadaha isgaarsiinta iyaguna ka dalbaday inay baraha bulshadu ku xidhiidho internetka xidhaan marka galabta la soo gabagabeeyo codbixinta ilaa inta lagu dhawaaqayo natiijada rasmiga ah ee doorashada talaabadaas oo ay sheegeen in looga gol leeyahay in laga hortago faafinta waxa ay ku sheegeen wararka been abuurka saraakiil Iiraaniyiin ayaa sheegay ilaa hadda la xaqiijiyay in 320 qof ku dhinteen dhulgariirkii xooggan ee ku dhuftay gobolka Buuraleyda ah ee ku yaala xadka dalkaasi la leeyahay Ciraaq waxay sheegeen in ka badan 2,000 qofna ku dhaawacmeen isla markaana ay guryihii dumeen oo korontadii ka go'an tahay saynisyahanno ka qaybgalaya shir qaramada midoobay ku qabanayso Jarmalka oo lagaga hadlayo cimilada dunida ayaa sheegay in neefta carbon dioxide ee warshaduhu hawada ku sii daayaan ay sanadkan kor u kacday heer ka badan kii 4 sanadood ee la soo dhaafay waxaanay sheegeen in waxa ugu weyn ee kor u qaaday heer kulka cimilada dunida qiyaastii 2 digrii centigrade ay tahay dhuxul dhagaxda Shiinuhu aadka u isticmaalo askari ka tirsan ciidanka Kuuriyada Waqooyi ayaa askar kale oo ka tirsan unugtiisu togasho ku dhaawaceen kadib markii arkeen isagoo doonaya inuu baxsado oo ka talaabo soohdinta aadka loo ilaaliyo ee u dhaxaysa labada Kuuriya askarigaasi waxa uu haatan u tallaabay dhanka koonfurta oo waxa lagu daweynayaa cisbitaal ku yaala dhinaca Kuuriyada Koonfureed waa arrin dhif iyo naadir ah in qof ka tallaabo goobta labada ciidan isku harfadhiyaan ee soodinta labada dal ugu dambeyntiina madaxweynaha Philippines Rodrigo Duterte ayaa kulan ay wada qaateen Donald Trump waxa uu ku faahfaahiyay gulufka muranka dhaliyay ee uu ku qaaday maandooriyaha ee kumanaanka qof lagu dilay afayeenka Duterte ayaa sheegay in madaxweyne Trump aanu soo hadal qaadin arrinta xuquuqda aadanaha intii ay labada madaxweyne wada hadlayeen hase yeeshee aqalka cad ayaa sheegay in si kooban arrinta loo dulmaray warkii dunida ayaa intaa ku eg aan idinku celiya Hargeysa iyo Farax أحمد نجاشة هذا يوم هتسني هاي وركي الدنيا يوم نلا سعوديين يسقون نيروبي جوجا مركن نودي أرجروبة قيبها كله برنامج كون كذا إيمانا يا هرجيسة وجاء sidii warkaba aad ku maqleyseen magaalada Hargeysa iyo guud ahaan gobolada lixda ah ee Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa saaka dadku ay u dareereen goobaha codbixinta waxa ay dooranayaan madaxweynaha 5 sanadood ee soo socota hogaamin doona waxa uu tartamaya 3 murashax oo kala ah Faysal Cali Waraabe iyo Muuse Biixi Cabdi iyo Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cabdiraxmaan Cirro waa markii ugu horeysay ee doorasho markaasi loo isticmaalayo in dadka isha bu'deeda inta laga sawiro marka ay sida ku galaan doorashada oo codkoodana ay dhiibtaan waxa jooga doorashadan oo dusha ka eegaya muraaqibiin markaasi ka socda ilaa iyo 720 dal oo 60 qof ka kooban magaalada Hargeysa iminka oo aan ku sugannahay goobo kala duwan ayaa doorashadu ay ka socotaa oo dadku wali safafka ay ku jiraan waxa ila ninka Axmed Saciid Ige oo goobahaas qaarkood soo maray oo aan doonayno marka inuu nooga warramo wararkii ugu dambeeyay ee doorashada iyo qaabka marka Hargeysa ay uga soconayso Axmed
farax waad mahadsantahay 190 goobood oo magaalada Hargeysa gudaheeda inta badan waan ku soo wareegnay xaafadaha oo dhan marka aad iyo aad bay dadku ugu soo baxeen doorashadan oo ah tii ugu dadka badnayd 5 doorasho hore aan u soo jeegay tan ay tii lixaad ay tahay aad bay ugu soo baxeen ilaa iyo subaxnimadii 3 habeenimay dadku qaar ay socdeen salaadii ka hor marka safafkana waad arkaysay dumarku ugu bateen iyo dhalinyaradu laakiin meelaha qaar kood dadku waxay ka cabanayeen in shaqaalihii midalan ay gacantooda ay culus tahay laakiin markan dambe imaka saacadahan dambe waan hadana dib ugu noqday waxa ay soo arkay in ay la qabsadeen marka 1642 goobood iyadoo goboladana aan la xiriiray oo maamulka iyo dadka kala duwan iyo saxafiyiin madax banaan aan la xiriiray ilaa iyo haatan si fiican ayay u socotaa habadaahin meelaha qaar kood gudiga doorashaduna waxa ay sheegeen inta qof uu ku jiro safka in markaasi aan la xiri doonin ee loo kordhin doono oo dabadeetana inta safkaasi ku jirta malka 6 gaadho dabadeetana xagga dambe la iska taagi doono dabadeetana caadi ay dadku ay u codayn doonaan marka inahaasi ayay tahay doorashadan in ardayda jaamacadaha gaar ahaan ceerigaabo oo sanaaga ayaa badi goobaha jooga dad ardaydii ka shaqeynaysa kuwii galbeedkana bari baa la geeyay kuwii barigana waxa la geeyay galbeed وهاجاك أحمد ومهاتسنتها وكوكوسا نقول دونا دقيستيال waxa guud ahaan dadka maanta codkooda dhiibanaya lagu qiyaasay tiradooda ilaa iyo 700 oo kun oo qof dad gaaraya oo kamid ah dadka lagu qiyaaso ilaa 4 milyan ee reer Soomaaliland qaybo kale oo magaalada Hargeysa sida Axmed uu sheegay ilaa iyo 190 goobood ay dadka codkooda ay ka dhiibanayeen wariyaasha BBC-da ayaa qaybo kale oo magaalada ah iminka jooga oo warar ka soo aruurinaya waxaana wariyaashaas kamid ah bashkaas jug soo dhacay waxa uu saaka tagay fagaaraha khayriyada waxaana uu nooga diyaariyay warbixin wixii halka uu ku soo arkay iyo dadkii uu la kulmay waa mid ka mid ah goobaha dadka ay ka codeeyaan oo ku taala magaaladan Hargeysa safaf badan ayaan ku arkaa meeshan oo maaragtay safafka dumarka waa gooni kana ragana waa gooni inkastoo ragga ay ka badan yihiin maaragtay dumarka qaarkood waxay sheegeen meeshan inay imaadeen wixii ka bilowda 4 saac oo subaxnimo Maran Ismaaciil Axmed 4 saac kan ina codkayga dhibtaan meesha weyn insha Allah waan dhiiban doonaa hadii Ilaahay igu simo waa samreeya dalkayga waan samreeya dalkayga waan samreeya waan waan galaya hadii la yiraahdo bal waxaad ii sheegtaa muhiimadda maxaa muhiimaddu ay leedahay marka inaad codkaada dhibatid muhiimaddu waxay tahay waa dalka Soomaaliland khayr baan rajaynaya kii saddexda xusbi kii qaada inuu Ilaahay mid khayr nooga dhigo maxaad rabaa inay suubiyaan dhaqaalaha amniga nabadda wax walba magacaada ii sheeg marka waxaad ii sheegtaa waqtigan meeshan maadi saaka fartibaanimi waliin musalayda magacayga waanu samreynaa oo sugeynaa codaynta marka waanu u samreynaa ku yutaay aday dhaxanta iyo aday kala hatayba waxaan sheegtay inaad afartay maaday ilaa waqtigan aad markaa saf ku jirtid soo xaalad maartay culus ma aha may naguma cuslo waxba nalama aha inta iyo in ka badan baxitaa qadadu haday noogu darsanto waanu u samreynaa waanu sugeynaa waayo tuka culus baanu yaanu soo marnay tan imika waanu dhownahay hadda horta laakiin hadii ay dhacdo inuu kuyugu dheeraado oo aanu taagnaana ilaa 5 garabta kulay wax gaaja iyo wax raada iyo wax dhibi toorana ma damqayaan waayo qadiyadayada ka kulul xalay ma seexanina sidaan kulay inta kale u kicinaya ka cadaydo hayay aniguna aanu ka caayay ayaan ku imid dhalinyarada maartay waxay u kacaan tahriib shaqalaan maartay ayaa jirta maxaad rabaa marka inay dhibaatooyinkaas dawladdu cusub ay ka qabato insha Allah inay tii wax nooga qabata tahriibta iyo shaqalaanta ba noqoto ayaan rajaynaynaa yaa Ilaahay wadankana khayr naga siiyo ayaan u rajaynaynaa ma jeclin tahriibta iyo shaqalaanta dhalinyarada labaduba waa nagu badan yihiin laakiin insha Allah Ilaahay baan weydiisanaynaa in Ilaahay naga saaro waxaan ku arkaa gabar yar baas tahay kulleeytu waxaas ka rabineed marka dawladdan cusub iyo waqtigaad imaaday magacaygu Idil Cabdiraxmaan Yaasiin waxaan imid 4 subaxnimo salaad subax ma soo baxay insha Allah dawladda saddex xusbikii qabsadaaba horta waa Soomaaliland oo barwaaqo u budooniya insha Allah kii khayr qaba wanaagsan ayaan noo noqdo oo noo raadiya in ixtiraaf si aan Soomaaliga hoos baxno oo nolol wanaagsan oo helo oo dhalinyarteedna shaqaale laanta uga baxdo magacaygu waa Naciim Maxamed horta saaka anigu ma qiyaasi karo xaaladda ku jiro waxaan soo kalahay goor hore waxaan soo baxay 4 habeenimo oo amniga wadanka oo sugan ma sha Allah wax dhibaya ma jirin waxaan ka soo dhacay waliba doox gaari saaka waa la joojiyay cid waa soo lugeysay oo waan soo lugay ha cid taagan iyo cid wax ku yeelaysa ma jirto horta Ilaahay waa mahad iskale nabadana ku sumay bismillaahir rahmaanir
magacaygu waa Koosar Cabdi Maxamed saaka waxaan afartii baan nimid markii la eedaamay baan nimid deedna soo tukaday safkaan ku soo noqday marka waxaan dooranay madaxweyne cusub hadii la ka dhigo maxaa muhiimadda ku leedahay inaad dooratid madaxweyne cusub waxa weeyaan isbedel wadanka helo madaxweyne cadaalad insha Allah doortaan doonaya Ismaaciil Cali Warsame xaaji kaleena waan ku magac dheerahay xiisay soo dhaqaajiyay dawladda cusub inaan u codeeyo oo Ilaahay noo barakeeyo aad baan u xiiseynayaa kuwaasina waxay ahaayeen dad u waramayay wariyaha BBC-da Bashkas jug soo dhacay saakay annagana waxaan dad kula kulmay xarunta hay'adda shaqaalaha dawladda waxaana iga warameen qaabkii codka ay u dhiibteen magacaygu waa Cabdifataax Sheekh Cabdullaahi Cali Maxamed Cabdifataax ma soo codays hawla waan soo codeeyay qaabkee marka codbixintu ay u dhacday bal nooga waran meesha ka bilowday iyo sidii codbixinta ay u samaysay codbixinta marka hore inaan ba magaranaysaa sheegaranaysa qofka gacan farariisa bidix in uu soo codeeyay in khad ku leeyahay kale kadib haddana magaranaysaa kaarka ayaa la hubinaya magaranaysaa qofka inuu magaranaysaa isiga sawirka ku yaala taa marka la isla hubiyo ayaa warqad yar shaabaysan la siinaya goobka inan kale la maraya marka inantaa kale marka la maro inantaa kale la magaranaysaa waxay siinaysaa warqadii lagu codeynayay saddex xisbi calaamadoodii qofku meel gooni ay u la tagaya dibadda iska talaab ay u marinaya xisbiga uu doonayay isagu qofku kadib warqadda inta isku laabo oo qaab yar uu ka dhigo ay sanduuqa codka magaranaysaa dhex dhigaya kadib khad baa haddana laga marinaya magaranaysaa fariiradii bidix saas ku soo baxaya waa gartay marka adigu intiiba waa martay intiiba waan maray weliba waxaan ku dhaafay suulka ayaa suulka bidixdaas laga dhigaya magaranaysaa saxiixiisa waa hagaag waayahay doorashadan marka siday u socoto markaa eegto ma ku qanacsan tahay inay mid hufan tahay doorashadan boqolkiiba boqol waa mid hufan waa mid horumarsan magaranaysaa caalamku nagu dayan doono oo hiigsi u noqon doonto magaranaysaa cid kastoo magaranaysaa caalamka ka mid oo doorasho xor oo xalaal magaranaysaa u diyaara maxay marka adiga micnaha kuu samaynaysaa maxay muhiim kuugu tahay muhiim runaantii waxay igu tahay qofka muwaadinku waa xaq uu leeyahay magaranaysaa isla mar ahaantaana qofkii iyo dadkii magaranaysaa waa mid ku kulminaysa magaranaysaa inay qofka ay isleeyihiin qofkaas runtii waddanka wuxuu qaban karaa inay magaranaysaa codkii halasiiyaha bismillahi raxmaan raxiim magacay waxa weeye cabdilaahi cabdishiil kala mida muwaadiniinta jamhuuriyadda somalilan cabdilaahi ma soo codays waan soo codeeyey si fiican baan u codeeyey waa hagaag waayahay waxaa iga warrantaa qaabkii codbixinta u samaysay qaab fiican ayaan maray barseskii ayaan maray si fiican baan magaranaysaa barseska u maray hab fiican bay u socotay aad bay wanaagsantay maxaa marka adiga ay muhiim kugu tahay doorashadan oo codkaaga u dhiibatay labada qodob labadaba waxay igu tahay inaan madax bannaanida jamhuuriyadda somalilan aan caddeeyo gooni isku taagayga jamhuuriyadda somalilan kana madax bannaanahay dhammaan wixii la isku odhan jiray soomaaliya oo aan ahay jamhuuriyadda somalilan aanan doonaya beesha caalamku sidii ay noo ictiraaf lahayd 20 sannadood in ka badan baan halkaa taagannahay oo ictiraafkaygu aanu raadinaynay doorashada waxay ka duwanaysaa in doorashada soo dedejiso ictiraafkii jamhuuriyadda somalilan aamina muuse xuseen aamina codkii waa dhibatay soo maaha doorashada marka ma ku qanacsantahay si hufan inuu dhacdo dhiiggay raacday waa gartay marka qaabkaa martay markii codkaa dhiibanaysa halkan sokaan maray faryaradaas waxay kaga sii badnay markii ku xigtay inankaan u tegey wuu saay haddana inantaan u tegey waxaan idhi ii xariiq indhahana waxba hagaagsa arkayn waan ku soo rido waan ku soo hubsaday hore muu codaysa wax alla wixii doorasho gashay waan codeeyey dalkana asay baan u soo qaaday waxay iiga dhigan tahay wax cirkaa iyo caadkaasa nabadgelyana ilaahay idankii wanaagsan oo farxad lehna ilaahay haynoogu dhammeeyo halkan aanu joogno waa mid ka mid a meelaha ay dadku codkooda ka dhiibanayaan doorashada somalilan ee saakay loo soo baxay safafku ay dhaadheer yihiin waxaa ii muuqda in la hormarinayo dadka jilicsan sida waayeelka iyo dadka lixaadkooda uusan dhammaystirnayn waxa kale oo aan loo oggolayn howlka gudaha inay u galaan suxufiyiinta waxaana ilaalinaya ciidanka amniga oo boolis ayaa meesha taagan waa hagaag cabdilqaadir iimaan warsame waa gudoomiyaha guddiga doorashooyinka ee somalilan nooga warranaya guddoomiye doorashada ilaa inta iminka aad og tahay qaabkay u bilaabatay saaka doorashadu waad aragtaa sida loo soo baxay nabadgelyada hargeysaynu dhex joognaa gurigii shaqaalahaynu joognaa waad aragtaa baaxadda ay leedahay waxaan soo maray 15 goobood sidan oo kale ay wada ahaayeen dadku 3dii habeennimo 4tii habeennimo 2dii habeennimo la soo fadhiistay marka waad arkaysaa goobihii dalkoo dhan 1642 goobood saaka subaxdaaya si nabadgelyo ay ku furmeen waa mid ilaahay loogu xamdi noqo waana sidaasay ku soconaysaa insha Allah
halkan khayriyada oo noo dhow waxaa la leeyahay xoogaa dib u dhacaya ku yimid doorashada 7 maanay bilaaban ma la socotaan waxay habaysanayeen qalabka oo waxa laga yaabaa minute iyo 2 minute inay dib u dhacaan goob kasta waxaan ugu talagalnay 700 oo qof inay iska codeeyaan waana iska codeynayaan insha Allah haddii waqtigu u saamixi waayana oo safka ay 6 ka dhacdana wixii safka markaa ku jira waa la dhammaystirayaa marka halkaas shaki kama qabno inuu dib u dhaco ama ay dadku waayaan meel ay ku codeeyaan laakiin gudoomiye safafku aad ay u dheer yihiin qaabka aan hadda arkaynana xoogaa gaabis weeyaan ma laga yaabaa inay dadejisaan dhalinyaradan aanu tababarka waxa weeyaan hadday bilaabayaan wixii ka dambeeya shaqada way wadayaan waanay soconaysaa had iyo goor markaad shaqo bilowdana waxa lagu bilaabaa si yaroo qabow waxay ku dhammaataana insha Allah si kulul marka waanu ku kalsoonahay tababar buuxay qaateen waa ardaydii jaamacadaha Soomaaliland oo dhan waanan ku kalsoonahay inay wadayaan shaqada ka soo baxayaan annaguna waanu dhex soconnaa waxa jira qolooyintii oo tii la yiraahdo ama kormeerayaal oo macallimiina oo kuwii iyaga tababaraya oo dhex wareegaya iyaguna caawinayana hadday u baahdaan macaawino cabdulqaadir iimaan warsame ayuu ahaa gudoomiyaha guddiga doorashada Soomaaliland oo si goorsii horeysay saaka ii waramayay warar goor dhexe la soo gaarayna waxa ay sheegayaan qaybo kamid ah gobolka Sanaag in laga soo sheegay banaanbaxyo si aan hadaba arrimaha wax uga ogaano waxaan la wareysi la yeelanay gudoomiyaha gobolka Sanaag Axmed Cabdi Falaay waxaan arrimaha uga waramay Axmed Saciid Ige warkaasi waxa waran sidii fiican walaalahayn dhammaan goobaha codbixineed ee magaranaysaa guud ahaan gobolka gaar ahaanna Sanaag bari goob codbixineed oo aan codku ka soconaynin ma jirto dhammaan ciidamadii qaranka iyo ciidamada kala duwan ee codaynta iyo difaaca qarankuba goobihii ku sugan yihiin meel kasta ka dhacdayna ma jirto arrintaa waxa weeye meel kale oo iska fog oo durugsan oo jiida uu Puntland iyo Somaliland iska soo galaalo jiidooda ah ayaa waxoogaa hadalaa laga sheegay gudoomiye waxaad leedahay hadaaftimo wax kama dhicin in banaanbixii oo waxaad leedahay sanaadiiqdii la dhigay hadaaftimo iyo ceelbu iyo xiingalool in waa caadi saddexdaa goobood iyo inta kale ee ku jidhow ee magaranaysaa ee codbixintu mid walba codbixintiisii loogu talagalay ayay ka socotaa hadda waxaa lagu fadhinaa dhammaan hogaankii guud ee militariga generaal faarax waxaa la joogaa taliyihii booliska ee gobolka taliyihii sirdoonka taliyihii badda korneelkii guud ee labada bari ee booliska isagana hoggaan looga soo dhigay inta iyaduba weliba isagu leexin galool ah waana kuu dhiibayaa dhammaan labada taliyaan kuu dhiibayaa waxaa wax ka jira ma jiraan arrintaa waa dad aan magaranaysaa been iyo falsification wada gudoomiye Axmed Cabdi Falaay gobolka Sanaag waa doctor waa gobol ballaaran magaalo madaxdu waa Ceelgaabo waxa kamid ah gar adag waxa kamid ah ceelaf weyn xiis mayd laakiin Sanaag bari markaad eegto dahar iyo laasqoray midkoodna diiwaan gelin kama dhicin oo iyada marka codaynayna kama jirto laakiin baran oo kale meelo ayaa la sheegay inay ka dhacayeen oo sanaadiiqda codka la geeyay marka imika waxa aad leedahay si nabadgelyo ah bay u socotaa guud ahaan gobolka Sanaag oo hadalladaasi ma jiraan baad leedahay miya waxa labada goobood intii markay saado labada degmo mooyaane guud ahaan gobolka oo dhan boos Kenya oo codbixineed oo aan codka ka socon ma jiro goob Kenya oo laba isu fadhiyo ma jirto وهاجاج هذا كاسي وحا وها قدوميها قبل كسناج أحمد عبد فلاي وحا ورمي وريها BBC ده أحمد سعيد إيجا وهاجاج دقيستيل ولا كان نقلا سعطان ولا أنت في صومالي BBC سدح ذا مرشح ترتمينا ساكا وحا عدكو ذا يكدبتين حرونتها هي أدى شقالها الدولة ده سيدو كلام مدحوينها صومالي لأن أحمد محمد محمود سيلانيو إسنا عدكيسة هلكا أيو كدبتي مروا بنا واحد وررك إن كلا سعان كرتان فيسبوك لا أنت أفك صومالي BBC ده هذا بدي دقيستيل مركن كسر دواده دتكو دبافينيي baafinta waxaa si wada jira stuudiyaha BBC-da ee magaalada Nairobi idinkaga soo tabinaya anigoo ah Caasha Saciid Xasan iyo Cabdiqaadir Yuusuf Cali Cabdiqaadir mahadsanid Caasha inta ugu horeysa maanta waxay naga soo gaartay Cali Cabdullaahi Galool oo jooga dalka Ethiopia waxa uu baafinayaa
cabdiqaadir cabdulaahi galool waxaana ugu wardambeysay isagoo ku sugan magaalada hargeysa sanadii 2000. haddaba haddii uuna maqlayo cabdiqaadir cabdulaahi galool amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo cali cabdulaahi galool iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay dalka Ethiopia. maxamed cali maxamed oo jooga Ceergaabo waxa uu baafinayaa Axmed cali maxamed waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka Yemen 2015. haddaba haddii uuna maqlayo Axmed cali maxamed ama way jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo maxamed cali maxamed iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Ceergaabo ama taleefanka lambarkiisu uu yahay 2526466844. faadumo xuseen xasan oo joogta dalka Ethiopia waxay baafinaysaa Nuuraddiin Junaydi Sayfaddiin waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan magaalada Jigjiga sanadii 2011. haddaba haddii uuna maqlayo Nuuraddiin Junaydi Sayfaddiin amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo faadumo xuseen xasan iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay dalka Ethiopia. farxiye xasan xuseen oo joogta Awbar waxay baafinaysaa xasan xuseen axmed waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan Afgooye 2007. haddaba haddii uuna maqlayo xasan xuseen axmed amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo farxiye xasan xuseen iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Awbar. faadumo aadan yuusuf oo joogta dalka Ethiopia waxay baafinaysaa xasan aadan yuusuf waxaana ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka Koonfur Afrika sanadka markuu ahaa 1996. haddaba haddii uuna maqlayo xasan aadan yuusuf amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo faadumo aadan yuusuf iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay dalka Ethiopia ama taleefanka nambarkiisu yahay 2592281344. nimca cabdulaahi hudle oo joogto Awbar waxay baafinaysaa Axmed cabdulaahi hudle waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalkani Kenya 2003. haddaba haddii uuna maqlayo Axmed cabdulaahi hudle amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo nimca cabdulaahi hudle iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Awbar ama taleefanka lambarkiisu uu yahay 251927848417. arda macalin maxamed oo joogta xerada qaxootiga ee qabri bayaxna waxay baafinaysaa faarax macalin maxamed waxaana ugu wardambeysay isagoo ku sugan magaalada Addis Ababa sanadii 2008. haddaba haddii uuna maqlayo faarax macalin maxamed ama way jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo arda macalin maxamed iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay xerada qaxootiga ee qabri bayax. mahdi xamuud xuseen oo jooga Awbar waxa uu baafinayaa ayaan cabdi xuseen waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan magaalada Muqdisho 2016. haddaba haddii ay maqlayso ayaan cabdi xuseen ama way jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo mahdi xamuud xuseen iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Awbar ama taleefanka lambarkiisu uu yahay 2596386656. bishaar maxamed cabdi oo jooga xerada qaxootiga ee qabri bayaxna waxa uu baafinayaa xaliimo maxamed cabdi waxaana ugu wardambeysay iyadoo ku sugan magaalada Burco sanadii 2012. haddaba haddii ayna maqlayso xaliimo maxamed cabdi amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo bishaar maxamed cabdi iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay xerada qaxootiga ee qabri bayax. cali cabdulaahi qaloon oo jooga dalka Itoobiya waxa uu baafinayaa Axmed cabdi carte waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan Addis Ababa 1992. haddaba haddii uuna maqlayo Axmed cabdi carte ama way jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo cali cabdulaahi qaloon iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay dalka Itoobiya. axmed jihaad maxamed oo jooga xerada qaxootiga ee qabri bayaxna waxa uu baafinayaa farxiye jihaad maxamed waxaana ugu wardambeysay iyadoo ku sugan magaalada Boosaaso sanadii 2009. haddaba haddii ayna maqlayso farxiye jihaad maxamed amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo axmed jihaad maxamed iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay xerada qaxootiga ee qabri bayax ama taleefanka nambarkiisu uu yahay 2519285559. cabdi muuse cumar oo jooga dalka Itoobiya waxa uu baafinayaa maxamed xaaji ibraahim waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan Hargeysa 2009. haddaba haddii uuna maqlayo cabdi muuse cumar ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo maxamed xaaji ibraahim iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay dalka Itoobiya ama taleefanka lambarkiisu uu yahay 2519476942.
xaliimo caydiid yuusuf oo joogta xerada qaxootiga ee qabri bayaxna waxa ay baafinaysaa faadumo cabdinuur maxamed waxaana ugu wardambaysay iyadoo ku sugan dalka Ethiopia sanadii 2002 haddaba haddii ay maqlayso faadumo cabdinuur maxamed amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo xaliimo caydiid yuusuf iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay xerada qaxootiga ee qabri bayax. salma cabdigood oo joogta dalka Itoobiya waxay baafinaysaa Khalid Cabdigood waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan Sanco dalka Yemen 1980 haddaba haddii uu maqlayo Khalid Cabdigood ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo salma cabdigood iyadoo wax waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay dalka Itoobiya ama taleefanka lambarkiisu uu yahay 25966777 Sahra Cabdi Xaaji oo joogta dalka Ethiopia waxay baafinaysaa Deeq Ibraahim Cabdi waxaana ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka Sacuudiga sanadii 2002 haddaba haddii uu maqlayo Deeq Ibraahim Cabdi ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo Sahra Cabdi Xaaji iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay dalka Ethiopia ama taleefanka nambarkiisu uu yahay 2596 Maryama Daahir Ibrahim oo joogta dalka Itoobiya waxay baafinaysaa Luula Daahir Ibrahim waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan Hargeysa 1991 haddaba haddii ay maqlayso Luula Daahir Ibrahim ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo Maryama Daahir Ibrahim iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay dalka Itoobiya ama taleefanka lambarkiisu uu yahay 2519151068 Jamiila Cabdi Dhareed oo joogta dalka Ethiopia waxay baafinaysaa Nimcaan Yaxye Sheekh waxaana ugu wardambeysay isagoo ku sugan magaalada Boosaaso sanadii 2005 haddaba haddii uu maqlayo Nimcaan Yaxye Sheekh ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo Jamiila Cabdi Dhareed iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay dalka Ethiopia. Cabdi Ibraahim Warsame oo jooga dalka Itoobiya waxa uu baafinayaa Baalle Ibraahim Warsame waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan Hargeysa 1977 haddaba haddii uu maqlayo Baalle Ibraahim ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo Cabdi Ibraahim iyadoo wix waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay dalka Itoobiya ama taleefanka lambarkiisu uu yahay 2596856392 Khadiija oo Xuseen Cabdullaahi oo joogta dalka Ethiopia waxay baafinaysaa Xuseen Cabdi Xasan waxaana ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka Djibouti sanadka markuu ahaa 1996 haddaba haddii uu maqlayo Xuseen Cabdi Xasan ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo Khadiija oo Xuseen Cabdullaahi iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay dalka Ethiopia. Ibraahim Maxamed Ciise oo jooga dalka Itoobiya waxa uu baafinayaa Sulub Maxamed Ciise waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan Boosaaso 2000 haddaba haddii uu maqlayo Sulub Maxamed Ciise ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo Ibraahim Maxamed Ciise iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay dalka Itoobiya ama taleefanka lambarkiisu uu yahay 2596828858 Xaashi Xuseen Cumar oo jooga dalka Ethiopia waxa uu baafinayaa Maxamed Waayeel Xasan waxaana ugu wardambeysay isagoo ku sugan magaalada Sanca ee dalka Yemen sanadii 2014 haddaba haddii uu maqlayo Maxamed Waayeel Xasan ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo Xaashi Xuseen Cumar iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay dalka Ethiopia. Aamina Ibraahim Yuusuf oo joogta dalka Itoobiya waxay baafinaysaa Faysal Shukri Yuusuf waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan Togo Jaale 2009 haddaba haddii uu maqlayo Faysal Shukri ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo Aamina Ibraahim Yuusuf iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay dalka Itoobiya. Xamdi Cabdi Cabdullaahi oo joogta magaalada Jigjigana waxay baafinaysaa Xasan Cabdi Cabdullaahi waxaana ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka Djibouti sanadii 2002 haddaba haddii uu maqlayo Xasan Cabdi Cabdullaahi ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo Xamdi Cabdi Cabdullaahi iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay magaalada Jigjiga ama taleefanka nambarkiisu yahay 2596926346. Hani Cabdi Odowaa oo joogta dalka Itoobiya waxay baafinaysaa Cabdirashiid Ismaaciil Suleymaan waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan Boosaaso 1992 haddaba haddii uu maqlayo Cabdirashiid Ismaaciil Suleymaan ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo Hani Cabdi Odowaa iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay dalka Itoobiya ama taleefanka lambarkiisu uu yahay 259669291125.
baafinta ugu dambaysana maanta waxay naga soo gaartay Ruqiya Cabdi Ciise oo joogta magaalada Jigjiga waxayna baafinaysaa Cabdirashiid Xasan Axmed waxaana ugu wardambeysay isagoo ku sugan magaalada Jigjiga sanadka markuu ahaa 1992 haddaba hadii uu na maqlayo Cabdirashiid